shirkadda gawaarida soo saarta ee Toyota ayaa markii ugu horeysay xafiis ka furatay magaalada Muqdisho tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya. munaasabad lagu qabtay caasimadda ayaa lagu sheegay in go'aanka shirkadda uu salka ku hayo dalabka sii kordhaya ee gawaarideeda ee suuqyada Soomaaliya. dhammaan baabuurta Soomaaliya hadda laga isticmaalo waa kuwa horey loo soo isticmaalay, waxaase sida uu ku waramaya wariyaha BBC-da ee magaalada Muqdisho Cali Nuur Salaad hadda kadib ciddii awooda ay fursad u helaysaa baabuur cusub inay hesho. waa dhacdo wax weyn ka bedelaysa isticmaalka baabuurta, lana filayo in ay daboosho baahida loo qabo baabuur aan horey loo soo isticmaalin. shirkadda Toyota hadda waxa ay wax soo saarkeeda ku iibinaysaa bartamaha Muqdisho. waxaan awoodnaa hadda in Toyota aan iibino. waxaan ku siinaynaa damaanad. sidoo kale dib u hagaajin iyo farsamooyin ayaan bixinaa ee qaybaha gaariga. upgrades to the suspension, to the brakes and to the transmission systems. in Soomaaliya ay ka howlgasho shirkadda Toyota oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo saara gawaarida dunida, waxaa la aaminsan yahay in ay wax ka bedelayso qiimaha iyo tayada baabuurta dalka. inkastoo gawaarida ay shirkaddan farsamayso ay yihiin kuwa ugu badan ee Soomaaliya laga isticmaalo, haddana ma uusan jirin xiriir toos ah oo macaamiisha iyo shirkadda ka dhexeeya, taa oo meesha ka saaraysay in ay macaamiishu helaan adeegyada ay shirkadda bixiso oo ay ka mid yihiin damaanad qaadka iyo dayactirada fudud. in ka badan 100 shaqaale oo xirfad leh ayaa xaruntan ka howlgalaya. dowladda Soomaaliya ayaa guul u aragta tallaabadan.